aanu ku bilown magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug laamaha amniga ayaa la sheegay in howlgal ay ka sameeyeen halka ay ku soo qabteen haweeney isqarinaysay oo la sheegay in magaalada gaalkacyo ay ku guursatay haween iyada oo iska dhigaysa inay tahay qof rag ah haweeneydan ayaa waxaa la sheegay in ay markaasi laamaha amniga ay gacanta ay ku soo dhigeen kadib markii ay ka shakiyeen dadka ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay haweeneydan ay ka shakiyeen laamaha amniga isla markaana ay joojiyeen kadibna baaris lagu sameeyay kadib ay ogaadeen in ay wadatay baastoorad sidoo kalena waxa uu sheegay inay horay ay u soo guursatay dhowr dumar ah iyadoo oo isticmaalaysay ama iska dhigaysay qof rag ah sidoo kalena waxa taliska booliisku ay sheegeen in ay isticmaalaysay xubinta taranka ee ragga oo macmal ah tali saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaa waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo deeqo aad arkaysaan deeq la yiraahdo magaciisa ninnimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo deeqo Cabdullaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay dumar badan xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah waxaan ku guuleysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno deeq oo magaciisa deeqa yahay baaritaan dheer ka bacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah ujeedada iyo danta ay kala hayna wali hadda baaritaan bay ku jirtaa waxaan noo cadeeyay ciidanka booliiska haween baa ku jira baaritaan ay ku sameeyeen baa waxa ka soo baxday inay tahay qof haween ah waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexdu ugu xirnaa markii baaritaanka lagu sameeyeen waxa ka soo baxay in waxaan ay nin ahaan u isticmaalaysay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxaa la sheegay in haweeneydan ay waqti dheer isku qarinaysay isla markaana ay guursatay dhowr dumar ah iyada oo markii dambana laamaha amnigu markii ay gacanta ku dhigeen ay soo dacwoodeen haween badan oo sheegay in ay horay u furtay inta lagu soo yeeray waa wajida qumarbana qofka waxaan watay dukaan baa leeyahay dukaanka ku waardiista meel go'an meel qandara ah qofna kuma dilaa qofna wax kuma yeelo gabadhan gabar cunug iyo ayadoo nafteeda haligaysa baan gurigeyga keenay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa dhacdadan maanta si weyn looga hadal hayaa iyada oo baraha bulshadana lagu faafiyay sawirada iyo qalabka kale ee ay isticmaalaysay haweentan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kadib markii booqasho dhowr cisho qaadatay uu ku tagay dalka dhaca galbeedka qaaradda Afrika ee Guinea halkaasi oo dawladda federaalka ee Soomaaliya maalin ka hor ay ku dhawaaqday inay xiriirka ay u jartay dawladdaas madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo dhaweyntiisu waxa ay aad uga duwaneed tii hore ee marka uu tago qaar ka mid ah dalalka caalamka marka uu ku soo laabtay Hargeysa lagu soo dhaweyn jiray boqolaal shacab ah ayaa la arkayay oo ku sugan albaabka hore ee garoonka iyo qaybaha magaalada kuwaas oo u taagan soo dhaweynta Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland sidoo kalena qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed hogaankooda ayaa iyaguna ka qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeestay go'aanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee xiriirka ugu jartay Guinea waxaase uu sheegay in dawladda federaalku ay tahay mid iska hadlaysa oo aan waxba ka bedeli karin go'aamada dalalka caalamka alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala maanta oo dalkeena wuxuu joogaa mahadi waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliyeed meelay joogaan gudaha iyo dibadda waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed dad jacaylkooda iyo dareenkooda fulijiyo waxaan u mahadnaqaynaa gobollada golayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka oo iyaguna markaba xisbiga ku soo qoray dalka layahay koonakay ama faranji Britania waxaana soo maray dalka Ethiopia waxaana kala kulay labada meeloodba wax wanaagsan iyo yuhaan fiican iyo qadarin
dalka Itoobiya waxaan joognay 24 saacadood 24 saacadood waxaan ku hadlay wasiir ugu waaweynaa wasiirka arrimaha dibadda iyo kii finance-ka waxaa kale telefoonka laga soo hadlay isagoo kormeer ku jira taliyaha ciidamada Itoobiya ee cusub taasina waxay muujinaysaa qadarinta iyo middaha Soomaaliya madaxweyne waxaa la kulmay qoormaan ku jira gudaha sabab ku kulmay wasiirka khaarijiga ee Chad oo aanu waqti ku qaadanay inaanu ka wada hadalno qadiyadda Soomaaliland wax badan oo waqtigeeda waxaan leeyahay dalka kuleetada Kenya Korakay oo dalka Fidel Daawayna oo madax ka yahay oo sidoo kale daraara taas ayaa soo jiray professor sharciga madaxweynaha uma Israa'iil Alpha Conde dadkaasi waa nin maamuusan magaalada hantiyada socialismka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safar shaqo waxa uu dhowr cisho uu ku tagay dalka dhaca galbeedka qaaradda Afrika ee Guinea halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxaase intii uu ku sugnaa halkaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in xiriirka u jartay Guinea oo markaasi ay sheegtay dowladdu inay ku xadgudubtay midnimada iyo madax bannaanida dalka Soomaaliya isla markaana waxa ay ka soo horjeestay go'aanka maamuuska aadka u sareeyay ee Somaliland madaxweynaheeda loogu soo dhaweeyay dalka dhaca galbeedka qaaradda Afrika ee Guinea senator u dhashay Nigeria ayaa ka digay in la aqoonsado Somaliland ama qayb kasta oo ka gooda dalka Soomaaliya sida warkan aanu ku faahfaahinay senatorkan oo ka la yiraahdo Shaahid waxa uu sheegay in isagu awoosan aqoonsanayn in Soomaaliya ay kala go'aysan markaana maamulka ay waliba dadka Soomaaliyeed ay yihiin dawlad qura senatorkan Shaahi waxa uu sidoo kale uu sheegay in dawladda Nigeria uu sheegay inaysan aqoonsan maamulka Somaliland waliba cid kasta oo ka gooda dalweynaha Soomaaliya senatorka oo la hadlayay qaar ka mid ah xildhibaanada dalkaasi waxa uu sheegay in Soomaaliya ay tahay dal xor ah isla markaana ay yihiin shacab wanaagsan oo qura waxaana uu sheegay dawladda dalka Guinea iyo waliba dawladaha kale ee Afrikaanka inaysan aqoonsan cid kasta oo maamul sheegata oo ka gooda jamhuuriyadda Soomaaliya hadalkan senatorka u dhashay dalkaasi Nigeria Shaahi waxa uu soo baxay kadib markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in xiriirka u jartay dawladda dalka Guinea isla markaana maamulka Somaliland ee dawladda Guinea ay sheegtay in xiriir wanaagsan ay la sameynayso isla markaana ay aqoonsatay maamulka Somaliland heshiis dhinacyo badan taabanayana ay la saxiixdeen maamulka Somaliland wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa shalay waxay isugu yeertay dhammaan safiirada dawladaha wadamada shisheeyaha u jooga gudaha dalka Soomaaliya waxaana ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay tahay Soomaali qura isla markaana safiiradu aysan loo ogmaday oo kaliya in arrimaha dalalkooda ay uga wakiil noqdaan dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baaqday shir lagu saxiixayay heshiiska ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika oo ka dhacay dalka Niger sida warbixintan ugu faahfaahinaya Xuseen Washington hogaamiyayaasha Afrika ayaa maanta waxay kulanka midowga Afrika ee AU-da kula yeelan doonaan caasimadda dalka Nigeria ee Niger si ay qaranka ugu duugaan heshiiska ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika madaxdu waxay kaloo ka wada hadli doonaan qatarta dhanka amniga iyo xiisadaha muhaajiriinta qaaradda Afrika gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa waxa uu sheegay in daqiiqad taariikhi ah noqon doonto markii ay 55 wadan oo xubnaha ka ah ururka AU-da maanta ay qaranka ku duugaan aaga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika kulanka madaxda Afrika ku leeyihiin caasimadda dalka Nigeria ee Niamey ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah laga bilaabo maanta oo xada ilaa iyo Isniina tirada hogaamiyayaasha dalalka Afrika ee ka qaybgalaya shirka Niamey ayaa waxaa la sheegay in aysan ku wada dhameystirneen 55 xubnood ee hogaamiyayaasha qaaradda Afrika balse heshiiska la saxiixayo waxaana uu u baahan yahay in ay ansixiyaan ugu yaraan 22 wadan oo Afrikaan ah heshiiskaasi ayaa waxa uu imaanaya kadib markii muddo 17 sano
socdeen wadaxaajood oo ugu dambeeyey waa wadaxaajoodkii ugu dambeeyey ee lagu dhammaystiray qodobada heshiiskaas dhammaadkii bishii abriil ee sanadkii lasoo dhaafay. dhinaca kale wasiirada ganacsiga ee dalalka afrika waxay ku heshiiyeen in ay aagga ganacsiga xorta ee afrika uu dhaqan geli doono bisha julaay ee sanadka soo socda ee 2020ka. ugu dambeyntii dalalka Benin iyo Eritrea oo kaliya ayaa la sheegay inay u baahan yihiin in ay saxiixaan heshiiskaas. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta magaalada Kismaayo waxa uu ka daahfuray carwada bandhiga buugaagta oo halkaasi ka qabsoomaysa. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta waxa uu ka qayb galay maalinta koowaad ee daahfurka bandhiga carwada buugaagta ee Kismaayo. madaxweynaha ayaa mid waxa uu u dul istaagay buugaagta lagu soo bandhigayo munaasabada isagoo oo qaar ka mid ah qorayaasha buugaagta ka gudoomay buugaag ay markaasi qoreen. waxaa kale oo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe uu halkaasi uu ka iibsaday qaar ka mid ah buugaagtii la soo bandhigay. madaxweynuhu waxa uu kale oo markaasi goobta uu khudbad uu ka jeediyay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha bandhiga isagoo oo sheegay inay aad ugu faraxsan yahay in isagu uu goobjoog uu ka noqdo carwadan oo ah tii saddexaad oo ay hirgelinayso madasha maankulan. carwada bandhiga buugaagta ee Kismaayo waxa uu soo amray baa leeyahay waxaa soo maray marxalado kala duwan waxaana markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Kismaayo 22ka bishii waa 2017 aan iraahday waxaana markii ugu horeysay lagu soo beegay maalinta afka Soomaaliga waxaana ka soo qayb galay 15 qoraa oo ka kala yimid Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Nairobi, Canada iyo waliba meelo kale oo dalka dibadiisa ah iyo waliba gudihiisa iyo marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in burburkii dalka ka dhacay kadib uu saameyn weyn uu ku yeeshay afka Soomaaliga iyo qorista buugaagtaba dad badan oo Soomaali ah. sidaas daraadeedna waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in dib loo bilaabo bandhiga carwada buugaagta oo qorayaashu ay ku soo bandhigi doonaan maskaxdooda iyo waliba cilmiga ay leeyihiin. iiraan ayaa sare u qaadaysa xaddiga bacriminta uraniumka laga farsameeyo hubka nukliyeerka. dowladda iiraan waxay maanta shaaca ka qaaday inay bilaabeen in muddo dhowr saacadood gudahooda ay ku naaxiyaan uraniumta in ka badan 3.67 boqolkiiba oo u dhigmaysa heshiiskii caalamiga la saxiixday sanadii 2015. afhayeenka hay'adda atomikada iiraan Behruz Kamalvandi oo maanta saxafiyiinta kula hadlay caasimada dalkaasi Tehran waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen in saacado gudahooda ay bilaabi doonaan heerka cusub ee bacriminta la gaarsiinayo in ka badan 3.67 boqolkiiba. waxaana intaa ku dareen kormeerayaasha British ay la tusi doono heerka lagu kordhiyay bacriminta uraniumka ee nukliyeerka. taasi ayaa kusoo beegmasay iyadoo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu dhigiisa Iiraan Xasan Ruuxaani xalay sheegay walaaca xooggan ee laga qabo khatarta heshiiska nukliyeerka ee dalkaas Iiraan. labada madaxweyne qadka telefoonka ku wada hadlay waxay isku raaceen in shir wadareed ay isugu yimaadaan bishan Juulaay 15 dhammaan dhinacyada khusaysa heshiiska nukliyeer ee Iiraan si looga badbaado khilaaf kale. ugu dambeyntiina ugu yaraan 12 qof ayaa ku geeriyootay weerar isqarxin ah oo ka dhacay dalka Afghanistan. dagaalamayaasha Taliban ayaa waxaa la sheegay inay weerar loo adeegsaday gaari miinaysan maanta ay ku qaadeen dhismo ay sirdoonka dalkaasi ay ku leeyihiin caasimadda gobolka Qasni ee bartamaha dalkaasi. weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay 12 qof halka in ka badan 95 qofna oo kalena ay dhaawacyo ay ka soo gaareen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda iyo kooxda Taliban. Xasan Raza Yusufi oo markaasi xubin ka tirsan gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in weerar isqarxin ah lala beegsaday dhismaha sirdoon oo ku yaala caasimadda gobolka ee Qasani. sarkaalka oo u hadlayay dawladda Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi lagu dilay laguna dhaawacay xubno ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka ee NDS loo soo gaabiyo. afhayeenka ururka Taliban
zaybullaahi mujaahid ayaa waxa uu sheegay in ay ka dambeeyeen weerarkaasi kuna dileen tobaneeyo ka tirsanaa saraakiisha sirdoonka ee dalkaas waxaana weerarkaasi uu dhacay xilli ay ergooyin ka kala socda dowladda afghanistan iyo kooxda daalibaan shirweyne uu uga socda caasimada dalka qatar ee dooxa si markaasi loo soo afjaro dagaalka 18 sano jirsaday ee weli ka socda afghanistan. dunida oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan akhyaarta qiimaha qadarinta inaga mudan doornimadan hadda waa nagaynta cidda warkeena uu seegayna waxay dib uga daalaan karaan page-keena oo ah radiodalsan.com. warka kula wadaagnaya wehelkaaga ha ahaado dalsan radio warta xogaha iyo xaqiiqda haddii ay ku dhaafaan macluumaadka ka baxa radio dalsan booqo www.radiodalsan.com si aad u hesho warar degdeg ah iyo warbixino xaqiiq ah.